السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفت له waan idin salaamaya meel kasta aad joogtaanba soo dhawaada haddaanad hore iigu jirin fadlan subscribe saar haddii kale ha ilaawin like-ta inaad suulka kor u taagto iyo inaad sii share garayso waxaynu maanta sameyneynaa alaab aan u aqaano quraabaad laga yaabo inaad adiguna wax kale u taqaano markaa tii baynu hadda diyaarsanaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaynu ka sameyneynaa halkan ku haysanaa waxaynu ka sameyn doonaa 2 koob oo daqiiq ah 2 koob oo daqiiq ah waxaynu kaloo ku dari doonaa haddii ilaahay ka dhigo koob barkii oo sonkor ah 100 mililigram weeye qiyaasaha yari waa koobka shaaha lagu cabo barkii oo sonkor ah haddaanad jeclayn sonkorta badan waad ka yarayn kartaa hadhowna in yaro malabaad ku cuni kartaa haddii kale aanad jeclaynba asalba uma baahnid sonkorta waad ka yarayn kartaa fixisadii ayaynu ku daraynaa malqaacada shaaha muggeed waxaynu kaloo ku dari doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo subag 2 malqaacadood oo kuwa cuntada lagu cuno ah ama 30 miligram oo subag dhalaalsan ah haddaad haysato waxaad ku qiyaasta yani waxaynu kaloo ku daraynaa in yar oo milix ah waa half mililiter weeyaan mililiterka ayuu waliba halfkiisa sii yahay dabcan waad ka dayn kartaa milixda laakiin waxoogaa bilaa dab buu noqonayaa ama bilaa dhadhan sibuu adigu dabku uga dhacsanaanaya markaa ma jecli haddaanad rabina waad ka dayn kartaa laakiin kole anigu waan ku daraa kaasi waa haylkii oo aynu soo tunnay midhihiisii qoloftii dabcan of course waan iska tuurnay waxaynu kaloo ku daraynaa haddii ilaahay ka dhigo caano aynu soo yara kululaynay way kulul yihiin fardiiris weeye waa koob barkii oo caano ah aynu sii kala qaybsanay oo marba qayb ku shubaynaa haddii ilaahay ka dhigo siyara dhex gelgelineynaa hadhowna gacmaha ayaynu ku xasheynaa haddii ilaahay ka dhigo si fiican isugu soo dhexgelin doonaa oo soo xasheynaa hadda si fiican baynu soo xashnay kadibna waxaynu sameyneynaa bac baynu ku xidhaynaa meel yara diiran baynu dhigaynaa saacad baynu soo fixinaynaa saacad baa kasoo wareegtay wuu faxay sidan uu noqday wuu jilicsan yahay maasha allah si fiican buu u faxay marka waxaynu sameyn doonaa hadda waa la waxaadi unbaa u dhiman in la kala bixiyo daqiiqdii aynu kula wixi lahayn ayaynu ku shubaynaa miiska daqiiqdu dabcan saas u badata ma aha aniga hadda way iga wada dhacday anoo dabcan meel kale kusii jeeda baan ku shubay laakiin wax yar baa fiican in lagu shubo si aanay kaaga adkaanin marka bal waynu eegaynaa hadda 4 qaybood baynu kasoo dhignay oo isla leeg waynu la wixi doonaa haddii ilaahay ka dhigo daqiiqdii waxoogaa sidan horeba idinku sheegay way ku yara badatay kadib waxaan sameeyey waan ka xaadxaadhay meeshii baan u baneeyey si aanu iiga adkaanin hadda waxaynu calaamadsanaynaa qaabkii aynu u qaabeyn lahayn 4 qaybood baynu ka dhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo taraygana baynu yara daqiiqaynaynaa kadib waynu saaraynaa inta harsanna waynu soo lawaxaynaa waynu soo jarjaraynaa insha allah
haddaad rabto waad yara fixin kartaa, laakiin anigu ma rabo inaan fixiyo hadda. Markii horean saacad soo fixiyey, laakiin kadibna waad fixin kartaa, dhib ma laha. Ayuu kaaga dhegin uun tarayga ama weelkaad saarato. Anigu laakiin saliidda horaan ka shidi doonaa biidnillaah marka aan jarjaro. Saliiddii baa dabka inoo saaran, way inoo kululaanaysaa. Mardhow markay inoo kululaato aynu ku ridayna. Saliidda marka hore sii kululayso, laakiin markaad ku riddo waxaa fiican inaad ka yarayso dabka si aanu markiiba kaaga guban. Muuqaalkiisa sarena wuu gubanaya, xagga hoosena ceydhin buu ka ahaanaya. Marka waxaa fiican in laga yareeyo dabka markaad riddo. Markii hore nambarka 12 buu ii taagnaa, haddana 8 baan kusoo ceshaday. Saliiddii baynu ku ridnay. Qaraabo haddaad u baahan tihiin dhexda ayaad saliidda kaga shushubi kartaan. Malgacadda aad hadda ku kala durkinayay baad saa uga shushubi kartaa saliidda kulul, si uu dhexda xoog uga soo wada boodo. Laakiin anigu ma rabo inuu xoog usii weynaado. Hadda waynu rognay. Sidanuu noqday maasha Allah. Markii aynu soo dhammaystirnay soo shiilnay. sidan quruxda weeyaan. Waxaan idin idhahay moogaan inaad samaysatiin. Casariyuhu ku macaan yahay Ramadaanka maasha Allah. saasuna u jilicsan yahay. sidaas iyo ka faa'iidaysi wacan qaraabo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.